السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soomaaliya dhacdooyinku waa soo tirayaan arrimaha yani waxa waaye. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Jibriil waa kaa qaaday walaal macaane, maasha allah. Xaaladda ka waran? arkayo saaxiib aad baa uga murugooda ma garatay raggii faarax ayaa faaraxna waa sigtisada faarax iyo baani garanaya axmed cali ayaa la waa taqaanisanaa qaybtan boosoniga idin joogiyo Si fiican, si fiican, si fiican, si fiican walaal, si fiican. aad iyo aad walaale, aad iyo aad. hala sheergareyo haddaan soo galay, hala sheergareeyo barnaamijka sheergarey bal Jibriil oo ku bilaawday ku dhufo sheer. ها ku kala soo galay walaalayaal insha allahu taala dhacdooyinka murugada badan waa is soo tarayaan, yani meel walba idinkana waa idin soo gaari doonaan, waadba la socotaan walaalayaal. marka waxaa loo baahan yahay dhibaatadaas waxaan ugu bixi karnaa dowlad baa naga saari karto. mar haddii dowlad aanan haysanin, yani arrimaheeni mar walbo waad daawan kartaan insha allah. dhegeysta meesha wax ka dhacayo. hooyo maanta berri hadihina waqti baan kuu qabana waqtiga lacagta ma kuu soo shubaan mise waa maya waan ka samra gabadhayda ii kala sheeg waayaha lacagtaadii baan ku yidhi lacagtaadii anigaa hooyadeed macaana anigaa dhalay anigaa cidhibtayda dhiigaysay anigaa lacagteeda ordi oo kuugu dhex jira taniya maalinkaad ila hadashay ilaa haddada aan kula hadlayo ma isteeg dhegayso allooyo macaano barnaamijka si fiican u dhegeysta. hooyo macaano ha iga qalin hooyo macaano ha iga qalin hooyo macaano ha iga qalin weynaada ilaahay idanka allaha ku barakeeyo ha iga qalin hooyo macaano daraarta waxaan ku idhi bishan hadda shanta ad taariikho laba dharaartay tahay taariikho laba waa soo diri lacagtiini hooyo kawaanka iga saar hooyo macaano kawaanka iga saar soddonkeeda iga qaad waayahay soddonkeeda taariikh soddon hooyo macaano taariikh soddon baa ku yidhi taariikh soddon hooyo allooyo macaanay waa fiicanahay allooyo macaanay waa fiicanahay nimanka iska soo sab waxaa tiraahdaa taariikh soddon waa soo diri lacagta taariikh soddon waa soo diri anigaa ku dhalay anigaad gabadhaydii tahay cid kugu xidhi maayo adeer iyo aabba iyo ehelkaana kugu dacwoon maayo nafta ka samira bal u dhiib hooyo macaanow taariikh soddon igu sima hooyo taariikh soddon igu sima hooyada oo kale anahay hooyada macaan baala hooyo macaanow taariikh soddon igu sima allooya idaay allooya iga taabanina taariikh soddon macaanow taariikh soddon hooyo igu simbaashan way socotaa maanta waa shan taariikh soddon waa 25 beri weeye waa 25 beri وايا تاريخ شن يقص وايا تاريخ شن يا طبعا تاريخ تسعة تاريخ طبعا كذا سما ها وشن طبعا كذا العقبة صادر وايا يلا يقولي يلا يقولي معانو يقولي وقعدوا يا معانو هيك تابا لنا قبضوا يا معانو هيك تابا لنا
walaalyaal ninka soomaaliga ah oo halkaas kasoo hadlaya ad ujeedaan waad dareemi kartaan waadna fahmi kartaan waxaan ogaanay oo xoogaal aan u nahay ragga nimankan la shaqaysto liistigoodii oo dhan waan diyaarinay waan haynaa dadka soomaaliyeed xaqiiqiyan gabar soomaaliyeed waay wuxuu ku hadlayo waad dareemi kartaa maleyna damiirtii baa ka dhimatay waxaan oo dhan maxaa sabab u ah see loogu gudbi karaa war shacab oo dowladiisi jeceloo taageersan baa looga gudbi karaa ya war miyaysan danteeni ahayn inaan dowladeeni aan taageerno walaalayaal oo ilaahay baan idinku dhaashay ya in dowladda soomaaliya dhidibadaan u taagno oo yacni dowladeeni baahida shacabkeeni hayso iyo dhibaatada ay hayso oo yacni muxuu ahaa meelaan waxba oolin rafaadkan ay usoo marayaan waa gabar soomaaliyeed waay muxuu yidhi ugu dambeyntii gabadhaadii waa la faro xumeynayaa buu yidhi macnaha ma garata waa kelmad yaab leh way sama ya maamo haryaha qaxootiga joogto dhadhaab ku nool 8,000 dollar xagee keenaysaa wa ya 8,000 dollar ma keeni karto midka marka qabiilka aaminsanow qabiil natiijadiis waa midaas xagga taalo waay kan qabiilka aaminsan oo 24 saacadood ku hayo reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel ku hayo qabiil hadduu wax furan karo gabadha ha soo furto bal aan aragno ya qabiil maantayto gabadhaas waxba ma qaban karo dhibaatadan hadda socotana qabiil ma joojin karo qaran baa joojin karo waxaan qaran ahayn oo ummadan deeqana haba yaraatee ma lahan ma garate wax aan qaran ahayn oo ummadan deeqo haba yaraatee ma jiraan dowladda waxaa loo baahan yahay inaan gacmaha iyo maskaxda iyo indhaha iyo meel walba inaan ka taageerno oon ilaashino dalkeeni halis buu ku jiraa dowladdan haddii naga fashilinto soomaaliya oo dhan way fashilintay waa u dhamaatay soomaaliya waa u dhamaatay ma garat waxaan idin sheegayaa dan manoo tahay dalkeeni dowladdeeni ruux walba ka soo horjeedo inaan meel iska saarno cadowgaas gabadha soomaaliyeed ee dad qalatada ah ee liibiya joogo waa dameer la adeegsaday waay lacagtana wax lagama siiyo wax uu kuleeyahay haba yaraatee ma lahan waa jaajuus magafa la joogo waay ma garat inuu hooyooyinkaas argagixiyo inuu hooyooyinkaas yacni muxuu ahaa ma arkino masaakiinta ah oo rafaadsan oo dandaraysan inuu yacni muxuu ahaa ku abuuro walbahaar iyo walwal waxaa la doonayaa marka soomaaliya inaan kacno fadhiga in laga kaco ayaa muhiima bal ka daro duba dhalmaamadii oo haddana yani waxaad dhegaysataan idin maqashiinayaa oo yacni rafaadka ka muuqda ad yaabaysid bal maamadii iyo haddeertaan ummadda soomaaliyeed lacag weydiis in loo gargaaro waa xaq maamadaas loo heliyo waa magarati gabar yaroo aqoon bay dhashay dhammaan muslimiinta walaalahayga muslimiinta waxaan ka codsanayaa waxanahay hooyo dhibaataysan oo qaxootiga dhadhaab ku nool oo gaar ahaan ifa ku nool walaalayaalo waxaan idinka codsanayaa gabadh yar oo aan dhalay oo agoon ah oo nimco suldaan cabdiraxmaan ba aniga la yidhaahdaa gabadhayda waxaa la yidhaahdaa sumaya jaamac keena diid baa la yidhaahdaa gabadh yar oo miskiina oo 15 jira oo iskuulka daara xigma ii dhiganaysa qaxootiga dhadhaab ayaa hooyo macaanow iga tagtay oo iga carabtay oo iga aaday liibiya oo liibiya iga gashay oo maxay ahayd 8,500 oo dollar oo lacag keen baa la yidhaahay 8,500 oo dollar oo lacaga ma haysto waa agoon aabbo male ehelkii iyo adeeradeed baa wadankii wacay waxay yidhaahdeen waxaan hayna male hebel wiilkiisii baa maqan oo hebel wiilkiisii buu hayaa gabadhaada waa kugu keli waxaan hayna iyo waxaan ka bixin kara male baa laygu yidhi hooyo macaano waxaan idinka codsan dhammaan muslimiinta meel walbay joogaan dunida daafaheeda bishii rabada khayrkan ku jiraa bisha khayrkan ku jiraa ku fikri ii heli kara ku sadaqa ii heli kara ku waalidkii oo dhintay jannadii fardows allaha ka waraabiya oo bixin kara nin walowba kitaabkaaga inuu ilaahay midigta kaa siiya nin walowba wixii midabkayga oo wixii islaam oo dhan muslimiin oo dhan oo yaa muslimiin yaa muslimiin yaa muslimiin baytaynu taagan tahay hooyo yaa muslimiin bay taagan tahay 8,000
دولار قبل كان وعصام ومسكين وابو ما يكوان كيسار دايوي هيا قلب العقيل وكوان مقشان أذكر الله اللي سقي وكذا سبي أو على هيدين يا وحن سيرنا شوقي هيا وانكو صدير وانكو زين وانكو أرد هيا تابن هيا دلين الله يبوك ما تقدر تنافني وانقلب دايوي قدوم فكيسي وان مقشان كوان كيسار دايوي سبان كدلالي وانكوري وكيرين الله هو كرما يقول مقام وحنا يمالي الله وين هو دربك مساعد صلاة الكربتكم الله وين هو درب رسولي وكعبا غوصة وحنا يسمالي الله وين مسلم كودرو تيدو يا مسلمين بيتاقا تيلا يعاوي الربا وقت يربو يخلصي وقت بدن وحيستي أنا قمر ما هذا كورما دقاقن وعربا يقعد الله إلى صاحاوي أذكر وان مخشان ويا صبر بيتي وقت قاعد يدافته وأنا يمالي أدوم كنختيني كيف واحد ما داير شغلتي الله بالشوي وانت يقينا لو كنت زي هالمرته كما دايلا الليلة بدبادي الله وين هو لما بدبادي كره الليلة بدبادي يا رب نسلك Somalay arrintan oo dhan marka aniga runtii mar hore aan rajaa waan arrintan oo dhan dawlad la'aan ba sabab ah waxaan ugu bixi karnaa inaan gacmaha isqabsano dawladeeni noo dhisay inaan taageerno ayaan ugu bixi karnaa inaan dawladeeni difaacno ayaan ugu bixi karnaa inaan iska qabano kuwa fidna wadayaasha hadda kiiskooda socod inaan iska qabano ayaan ugu bixi karnaa hooyadaas qof walba wax u heli karo walaalayaal ha la caawiyo maamadaas ha la caawiyo qof kasta wax u heli karo يعني محوها هأدرو هاللوكاو ولا ريال يعني وحوايا أرنتانا وهالسبب نينك ماشي جوجو والله يقانا نينك ماشي جوجو أنا كمان تحد وقتي أنا حاضر كان مهم معهن إن قبيل كيس يوحو يهي يوحو البانشوا كاس كلمة عن رك بدل الصومالية أيا ماشي إذا تشوف وأنا من كذا شقيستو قاربا صوروا ذي هينا صوروا ذي بنا لو صدري rag baa khayr allah siya sawiro ka soo qaaday oo wadadaas soo maray jidkaas maarkii muxuu ahaa halaaga ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa walaalayaalow dadka soo tahriibo war meeshan wax yaala ma lahan war meeshan nolol kaagama soo horeysee hadda gabadhii ayadoo waxbarasho ku jirto dhadhaab intay ka soo baxday oo la khiyaameeyay oo maskaxdeeda la bedelay wadadii dheereed ay soo martay oo halaagan iyo rafaadkan dhibaatada hadda meesha ku haysato ayadoo qaxooti mar hor qaxooti ay ku jirtay waxa loo baahnaa inay kiisiskoodii dadka yani muxuu ahaa aniga imaanshaha wadamadan qurbahan ugu yaraan 20 qof amal waan keenay waa ila timid hal shilin oo ilaahu rabbi raxmaano $10 igama bixin dhoofitaan oo soo dhoofo shilin kama aan bixinin ma garad hal shilin kama aan bixinin waxaan ku yimid alxamdulillah rabbil alamin kiis baan ku yimid magarad dadku hadii kiisaskoodii ay ku dhiiradaan oo ay daba galaan dhoofitaan way helayaan ummadda Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa walaalayaal meesha tan hadda gabadhaas markii ka soo baxdo magafe oo Ilaahay ka soo badbaadiyo Mediterranean ba ka horeyso baddi weyneed ba ka horeyso magarad hadda magafe telefoon buu dirsanayaayo qofkaagi waan qali waan farxumeynay hadii ka lacag ka soo bixi buu ku leeyahay koox Soomaali baa la joogto laakiin Mediterranean yaa telefoon u diraysa adiga marka baddi weyneed aad soo gasho dadkii soo maray waxay iga sheekayeen in laba habeen iyo laba maalmood la soo soconayo baddaas gudaheeda ma garat baddaas marka xageed telefoon u diraysa bad baa ka soo horeyso ma garat hadda imow yurubtii dal qaarad yar maahane waxaad ka soo degaysaa Shishiili iyo meelihii maarkii muxuu ahaa meelaha Soomaaliya ay ku xiriirantay Malta markaad ka soo degato yurub markaas waxay ku jirtaa Afrika intay ku jirto 3 laabkeedii bay ku jirtaa meelihii yurubta laga imaan lahaa ma garad haddaad soo aadi lahayd Jarmalka haddaad Sweden soo aadi lahayd haddii aad meelo kale aadi lahayd يعني محوها إن أنت صدل أيا كاعيقو ضلالكي أردن حدوده دي واحرين تلياني يتمت نلول مطالو محاس مين السا وح ملول أو تال هبي رات ما له تلياني ما قرت يعني برشايدة بتريد الكبضة 6 مليون ككوبن
oo dadkii banaanada ay wada jiifaan waay kuwii idinkaga soo horeeyey oo haddeertan dhammaantood badi way waasheen ma garata badi way waasheen ma garata talyaanigii baa timid talyaanigaad ka soo baxday austria ku xigto baasha switzerland aa ku xigto switzerland dibay kuu celinaysaa ma soo geli karto xuduudeeda haye haddii switzerland kasoo fakato austria ku qabanay austria haddaa kasoo baxsid jarmalka kama baxsanaysid oo jarmal weliba laba qiimood oo laba dhinac oo waaweyn ah weliba waa yurubta wadanka ugu ballaaran waay markaad fiiriso dhul ahaan haddii jarmalkii haddana bad baa lasoo mari bad baa udhexaysa jarmalka iyo denmark dhexdooda baddaas ayada waxaa ka shaqeeyo maraakib doon hal markab baa saaran oo dhinacan calanka danishka ku xiran dhinacan calanka jarmalka ku xiran ma garata askar baa dhex joogta labada dhinac markabka gudihiisa ayaa xuduud baa taalo qiib waxaa waaye waa jarmal qiibna waa danish ma garata markaad soo gudubto denmarkaad markaad imaad haddana dhibaatada markaad kaam gashid oo rafaad aad marto rejected baa lagu siin waa lagu diiday for example maxaad sameynaysaa ma garata dalkaagay kasoo tagtay iskoolkaagay soo xirtay ma garata caruurtaadi haddaad aabaheed soo dayacday kasoo tagtay maxaa kaaga horeeya meesha iyada ya telefoon baan qabanaya walaalayaal waxaan doonaynaa marka dadka soomaaliyeed xaqiiqdu inay fahmaan baa loo baahanya ya asalaamu calaykum ha walaale soo dhawow see tahay xaaladda ka waran waa fiicnay walaal magacaaga muxuu ahaan waa hilmaamay niyo waa isku cusubnay mi ani adiga maasha allah walaal macaan aad baad umahadsan tahay waxaan aada u jeclaan lahayn hadee qaranimada taageerada ka sokow dhibaatadana haysato waxaan ugu hortagi karnaa dowladeeno taageerno wixii ku dhegan aan ka fujino dowladdii baan rabnaa inaan hiilo u noqonay waxaan doonaynaa dhaqaalaan kaa doonaynaa saaxib cabdikariinow wixii tabartaadii ah ood awoodid ahe ogow hade maamadaas markaad waa laga saaraya insha allah way ka baxaysaaye ogow barnaamijka maamooyin kale oo sidaan cabaadkood u bixi doonaad arki doontaan waxaan doonaynaa inaan iska soo afjarno meesha muhiimadda laga cabaaro inaan ka cabaarnaa loo baahan yahay soo ma marka barnaamijkan waxaad ugu qeyb qaadan kartaan 25 euro 100 euro 50 euro wixii aad awoodaan waan daneen lahayn insha allahu tacaala dee waa aad iyo aad baan yani muxuu ahaad ugu mahadsantihin maamadaasna ha loo kaalmeey ma garat aad iyo aad saaxib macaan wallahi xaalada adag ee meel walba ka taagan ee dhibaatada ah weli sii hurinaya oo aan ka weynaanayn oo iyagii meelaha laa joogo ay dabir xumadooda oo maanta waxa weeyaan xaalada ilaahay og yahay iyo qofka wax garanaya u muuqataba ma garanaysa sii halaagaya ummadda ilaahay inuu ka qabto inuu garanaysa la iska celiyo waa muhiim marka ismaaciil oo qaabkee rabtana arrintaa u gashaano maxaa aad iyo aad ma niminkan gacan bay ku jiraan ilaahay idinkiis gacan bay ku jiraan niminkan kiiskoodii muddo 4 bilood baan ka shaqaynaynay hawshii waan ka guuleysanay insha allah keliya waxaa noo furan dacwadaas baa noo furan inaan yani wax la taaban kara aan ku qabsano wixiina kiisaskii oo dhan waan diyaarinay looyaradii baa marka lacag noogu baahan insha allahu tacaala hawshii feelkii gudbintiisiiba lacag baana laga rabaa dalalkan waa laba dalba hadda labada meelood adi aa sheegtay u dambeeyey dabcasar ninka la yirahdo waa naga fogyahay kaas isaga ah insha allahu tacaala laakiin kuwa qaarada aan wada joogno ayaan doonaynaa inaan gacan bir ku qabano ma garat
u sheeg soomaalida horta yani sidii wax lasaga baloogo ma yaqaanaan inay iska balooqaan bal kula tali dadkan dad soo hadda wallahi iska daa qofka soo sheegay wallahi ka soo sheeg garay balooga ilaahay googi kuwa soo sheeg garay hadda waxun ka sheekay ilaahay googi waa balooga marka waxa wanaagsan yahay in magaranaysa la iska taakuleeyo aad iyo aad u fiican tahay kii af iyo aadkii dhaqaalaha kii magaranaysa dadka wacyi gelin kara kala Soomaalidu waa dad wax magarata ay u badan yihiin wax magarata ay nahay atada kuma jirnaa soo tansare waxaynu u baahanahay kala wax badan baynu u baahanahay Ismaaciil Allah barakeeyo wallahi aamin walaalkay maan jazakallahu walaal maan insha Allah walaalkay maan igu إن شاء الله ولا المعان إن شاء الله ولا المعان إلهي يدمك سبحانه عادي هذا ولا المعان إن شاء الله ما مضى صلوا قرمدوا ما مضى صلوا قرمدوا إن شاء الله لكن ما مضى قرمد كذي كليا يعني نقول ريبنا هل قرمدوا سيدي أرنتا سنقول بحيلين سلك هذا هو سوى إن بنان كدقنا ساز الله باي إن شاء الله تعالى ولا إن شاء الله تعالى إن شاء الله ولا إن شاء الله marka walaalayaal maamadaha loo gurmado maamadaas waa muhiim in loo gurmado laakiin ogow maamooyin fara badan baa sidaan u soo oyn doono haddii aanan dawladeeni taageerin haddii aanan dalkeeni dhismihiisa aanan ka qayb qaadanin haddaanan iska qabanin kuwa dal burburiska ah dal dumiska ah af ku dhigliyaasha ah gacan ku dhigliyaasha ah il ku dhigliyaasha ah haddaanan iska qabanin wallaahi billaahi tallaahi maamo badan baa sidaan si ka daran u oyn doonto ma garat waa inaan u gargaarnaa إن شاء الله تعالى وحن لنا إنا لله وإنا إليه راجعون ما مضى سنتي وحلقنا حوارنتي وأرين خطر أوايا إن شاء الله تعالى هلا قرمدو وحكلون دونينا رجيني دل يدود ملك استوات جوكتان إن كقيب قاضنا سيدي من كاس أيجا حير كعالمي ولا تكسر له تدكي بدنا أو من كان نبقى ما غان مالي آدم ما مساجدكم مقيين dadkii Soomaalinimada jecel meelay jiraan aniga ma aqaano bal la share garay insha Allah taala dadka Soomaalinimada jecel waxaan doonaynaa in ay arintan ka qayb qaataan qofka Soomaalinimada nacab oo qabiil iyo qurun jecelna waxa loo baahan yahay inuu iska cararo muna magan diyaar brother ma wala shay macaan insha Allah dadna soo wacdi waan ka sii jeclaan teleefonkeygi waka xaga ku qoran haddii aad wax noo ballan qaadaysid aad baan u jeclaan leen wax walbo aad yani awoodiini ah $100 $50 $25 intaba waa qaadayna hadduu ilaahay ilaa galabta ilaa shalay lacagaan aruurinaynay assalaamu calaykum war isaam ii waran walaale see tahay xaggee joogta walaal maasha allah barnaamijka mala socotaa هاي محط آديات برنامج كان محط وقلت لك الشيء وقيب قادن كرتا إن لبعتداس أصل كذي حددنا نسيبنا يندونينا maxaad tabartaadii oo ilaahay ka soo qaadi karo $100 $50 $5 maxaad awoodi kartaa ma sha Allah teleefonkaaga ii yeeri khayr Allah ku siiyo kan waa gartay ma sha Allah magacaaga saddexan ka meesh ku qoran Soomaa khayr Allah ku siiyo insha Allah shirkad alla shirkadii kugu dhow ayaad soo dhigaysaa barnaamijkaas waxaan doonaynaa insha Allah 2018 inuusan nala gaarin oo Soomaali tahriibto dambe in la waayo dalkeen inuu barwaaqo noqdo kuwa dockeerada ah qurunkaan inaan insha Allah taala gacan bir aan ku qabanay idin ballan qaadina ilaahay idinkiisa teleefonkeygii waad haystaa iyo magac saddexan Ismaaciil Axmed Aadan waad haystaa Soomaa Stockholm umbad ku soo hagaajina rinkibi haduu ilaahay insha Allah Isam Sheikh insha Allah walaalkay macaan waad maasantahay asxaabtaadina gaarsi ruux walba Soomaalinimada jecel oo dawladda inuu garab istaago u baahan wixii uu asiga tabartiisa ah ku soo dhiibo oo soo raacay haduu ilaahay
dadkii Soomaaliyeed oo kuwa hadda xabsiyada ku jiro iyo macal hadii maarkino Ilaahay idmo kuwa xabsiyada ku jiro kuwa yani muxuu ahaa insha Allah ta'ala oo yani muxuu ahaa ku dhibaataysan haryaha qaxootiga kuwa yani muxuu ahaa xabsiyada lagu hilmaamay dhammaan intoodii الله أكبر نفس الدولة أيها هلقا مرك إن شاء الله لكن وعي قلنتو دوا بلابنيسا أرنت التنوان تيتو وحا كلية ضبالك دولة ديرينا تاغيرنا شعب دولة تاغيرو إلهي هنقا يقول معان آد بضو ما سنتا إسام الشيخ علي هتسنو لالكي معان هيو لالكي معان إن شاء الله خير الله سي إسام سي شغني معه أيو وقيم قاتي برنامجكي يعني محوها وقيمها بدنا runtii waxa waaye maantayto yani uma kala harayno inaan dawladda noo dhalatay wallahi inaan idna ka yeelaynin inaan burburino qof bini aadam ah oo ka yeelayn haba yaraatee malahan ya maxaa yeelay dawladdeeni wax badan ayaa yani muxuu ahaa anaka afkeena isku burburinay Isam Sheikh walaalyaal marka insha Allah ta'ala barnaamijka halaga qayb qaato barnaamijyadan hooyooyinkan dhibaataysan aad u jeedaan maamadan iyo caruurtan saan loo garaacay dhibaatadan dhibkan dhib dawlad baa joojin karto dawlad wanaagsan dawladeeni oo taageernoon garab istaagna ayaan ugu bixi karnaa ma garad badda imasa noogu dhimatay bal soo xisaabiyo waa dawlad la'aan waay kuwa hadda Liibiya ku xiran waa dawlad la'aan waay magar sababtaas waxaa sababi karta dawlad la'aan shacabka Soomaaliyeed ayaga dawlad noqon kara magarat arintan asalkeediina waxaa ka yimid waxaa sabab u ah qabyaalad iyo qabiil iyo qurun dad aaminsan dalka yuu ka dhismi la'yahay wala isweydiiyey ya Soomaaliya yay ka dhismi la'dahay Soomaaliya waxay ka dhismi la'dahay qabiil bay ka dhismi la'dahay qabyaalad bay ka dhismi la'dahay reer hebel bay ka dhismi la'dahay ma garat dad si fudud inay wax ku cunaan ay ku talagaleen inay ummadan hantideedii iyo maalkeedii ay banaystaan doonayo ayaa sabab u ah dalka inuu dawlad waayo runtaas u sheegaynaa qof ilaahay aan ka helon ka baqayna habeeraata ma jiraan alxamdulilah rabbil caalamiin ma garat waxaan leeyahay marka shacabka Soomaaliyeed dawladdiina garab istaaga dawladda in la garab istaago waay dawladdeeni inaan ugu helano waay cadowga ya dawladdeeni inaan garab istaagno waaye yani baalka waxaan ugu jiraa maalmahan ilaa maanta waxaan ugu jiraa laptop baan ka isticmaalaya raalli ahaan madowga yar aad u jeedaan waxaa waaye habeen way tahay yani waxaa waaye waqtiga waa habeen ya ayadoo habeen haddana waxaa waaye iftiin qoraxeedna waa jira dal ilaahay halkiis og yahay baan joognaa marka waxaa waaye hadda wax maa loo jeeda xogo disaan la dhaha maybe ya barnaamijka waa soo gabagabeynaya waxaan doonayaa insha Allah inaan taraawiix ka gaarsiiyo walaalayaal marka waxaa laydinka rabaa aniga habeenii maalin online baan ahay maasha Allah lacag badan baa insha Allah ta'ala rajaynayna ilaahay idinkiisii dadka dawladda jecel dadka dawladnimada jecel mooryaannimada iyo tuuganimada necab ayaan la hadlaynaa ma garat dadkaas waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliya inaan garab istaagno si maamo dambe aysan u ooyin si hooyo dambe aysan u ooyin bal waxaan oo kale ilaahan kugu dhaashay waa idinku soo celinayaa si ay yani muxuu ahaa bal wax maqle meeshan maamadan dhageysto ya bal dhageysto maamadan ilaahan kugu dhaashay walaalayaalo waxaan idinka codsanayaa gabadh yar oo aan dhalay oo agoon oo nimca suldaan cabdiraxmaan baa aniga la yidhaahdaa gabadhayda waxaa la yidhahdaa sumaya jaamackeena diig baa la yidhaahdaa
gabadh yar oo miskiina oo 15 jir oo iskuulka daar xigma ii dhiganaysa qaxootiga dadhaan ayaa hooyo macaan oo iga tagtay oo iga carabtay oo iga aaday Liibiya oo Liibiya iga gashay oo maxay $8,500 lacag keenta leeyahay $8,500 lacag ma haysto waa agoon aabbo male ehelkii adeeradeed baa wadankii wacay waxay yidhaahdeen waxaanayna male hebel wiilkiisii baa maqan oo hebel wiilkiisii buu hayaa gabadhaada waa kugu keli waxaanayna iyo waxaan ka bixin kara male baa laygu yidhi hooyo macaano waan idinka codsan dhammaan muslimiinta meel walbay joogaan dunida acdaafaheeda bishii rabada khayrkan ku jiraa bisha khayrkan ku jiraa ku fidri ii heli kara ku sadaqa ii heli kara ku waalidkii oo dhintay jannadii fardows allaha ka waraabiya oo bixin kara nin walowba kitaabkaaga inuu ilaahay midigta kaa siiyo nin walowba wixii midabkayga oo wixii islaam oo dhan muslim oo dhan oo yaa muslimiin yaa muslimiin yaa muslimiin baytaynu taagan tahay hooyo yaa muslimiin bay taagan tahay $8,000 gabdhaanka keena waa agoon waa miskiin waxbuu maayo ka waa kay saaran tahay buu yidhi hooyaa iga qalin baa lacagtayda waa kaa waad maqashaan adkaan oo la hadli isagii oo kasasabi oo waxaan lahaynin iyo waxaan jirin oo joogin hooyo waan kuu soo diri waan ku siin waan kuu ordi ha iga taabanin ha iga dilin allehay buu gabadhiga teleefonigu waan qabatay oo igu duubtay codkiisii waad maqashaan ka waa kay saaran tahay kursi baan ugu dadaalay waan kawrixi waa keenayn allaha awood darmayo wuxuu maqantahay waa agoon waxaanaya male allah weyne awood dare habeenkii ma seexdo salaadileel tuko allah weyne awood dala fariisu dhiwa gacmo hoosaysta waxaanaysta male allaha weyno muslimka oo dhamo taydu yaa muslimiin bay taagan tahay la caawiyaan rabaa waqti yar buu ii qabtay waqti badan buu haystay aniga marana hadda ka horma dhaqaaqin waxaan rabaa in gabadha layla soo caawiyo codkeeda waad maqashaan hooyo iga sabir bay tiri waqtiga hadday dhaafto waxaanaya male adduunka naftaydi markasaarinteeda waxaad moodaa isha dabiyaa lagu shubay oo inta yaqiinada uga dhisa ay hormarto gabadhayda in layla badbaadiyo allaha weyne awoode lama badbaadin kare in layla badbaadiya rabaa muslimka walaalayaal nambarkeedii waad qoran kartaan waa idin yeerinayaa qalin soo qaato nambarka maamada nambarka maamada waxa waaye furaha Kenya ka hormari balaas 25 inta idin ku soo qorayaa balaas 2547 maamada nambarkeeda waka Soomaaliy warhadi adna nambarka waa kan walaalo waa kan nambarka fiiri waa kan nambarka ana soo qoray balaas 254704858072 waa nambarka waa kan walaalo waxaa kaloo idin ballan qaadayaa haddii aad si specifically ahaan aad igu soo dirtaan waan gaarsiin karnaa oo lacagtaas hadii la maamadaas qofkii teleefonkeeda waayo yani muxuu ahaa qofkii u soo diro oo igu soo qoro oo yiraahdo lacagtan waxaan ugu talagalay maamadaas ayaa iskale barnaamijka kale ma ahan qofkii yiraahdana waa gaarsiin karnaa wixii aad noo soo dhigtaan insha Allah taala taariikh soddon waa soo dir lacagta taariikh soddon waa soo dir aniga ku dhalay aniga gabadhaydii tahay cid kugu xidhi maayo adeer iyo aabba iyo ehelkaana kugu dacwoon maayo nafta ka samira bal u dhiib hooyo macaan oo taariikh soddon igu sima hooyo taariikh soddon igu sima hooyada oo kala hooyo macaan baa hooyo macaan oo taariikh soddon igu sima
الله يداي الله يقطع لنا تاريخ صدن معانا وتاريخ صدن ويوسم باشن ويسعى كمان تواشن تاريخ صدن واشن يلا ما تنبري شن يلا ما تنبري وي واشن يلا تنبري لعند برنا صور مر لعند لا قاعد يعني هو بهرتا عادي امر كشكو هذا صور مر كتير ولا تصدق وين ويا تاريخ شن يقص ويا تاريخ شن يا طبعا والله عاد بركاته ما هي تاريخ طبعا برتودر كان وكبيت برتودر تاريخ تسعة تاريخ طبعا كذا سماها وجه هذا ما شافه ما ها وشن طبعا الو السلام عليكم ها صاحب ساتاي الحمد لله aad baan u fiicanahay kusoo dhawo barnaamijka mala socotaa waa gartay waxaan u malaynayaa suuda inaad joogtid aniyahow barnaamijyada waa laba nooc waaye maamo oo qayladhaan ah ayaa hadda qadka soo gashay oo yani muxuu ahaa aad iyo aad xaaladeedu serious u tahay gabar yar kaga xiran meeshan saxaraha liibi la yidhaahdo barnaamijkaas barnaamijka loogu hortagi lahaa oo hawshiisa aan ku jirnina dhaqaalaan doonayn hadduu ilaahay idmo marka insha allahu tacaala wixii tabartaadii haddii aad nagu saaciidid waa jeclaan lahayd ma garta ummadan loogu gurmin lahaa lagu wacyigelin lahaa ragga dowladda kasoo horjeeda lagu qaban lahaa baan doonayna ay kuwa habsiyada ku jira kusoo sii daysan lahayn maxaa muhiim ku ah walaale maasha allah aad iyo aad waad nagu soo hagaajin kartaa haddaad doontid telefonkeedii halkaasu ku yaala waad u diri kartaa ma garate ora numberkeedii waa kan waxaad qorataa okay qalin soo qabsay numberkeedi waxaa waaye furaha kenyaad ka hormarinaysaa ma garatay waa plus 254 plus 254 ma qortay 70 48 58 072 ahaa waka numberkeedi waka maamadaas hadduu ilaahay kale may ayadaa direct ugu diraysa aniga waxba hadiiba aad telefonkaad mar hayso waxaa waaye haryaha qaxootiga ifay joogtaa bartaasunbaad ugu hagaajinaysaa ma garat ay walaal maana insha allahu taala okay walaalayaal marka waxaa loo baahan yahay soomaali waa inay isbadbaadiso waa muhiim way laakiin ogaada maamadan in loo gurmado waa shay waajib ah laakiin waxaad ogaataan in midaan ay istaagi doona haddii dowladeena aanan taageerin oo iska celinin kuwa cadowga dowladda ku ah ma garata dhaqaalo wax allaale wixii maanta aad heli kartaan waxaa muhiim ah barnaamijka inaad ku bixisaan oo hadda aan ugu bilownay dowladeena inaan difaacno ayaa waajib nagu ah walaalayaal hooyo iyo walaal meel kastoo aad joogto maanta gabadhaas waaba qayladeed waaba maqalnaa kuwo badan qayladood aan la maqlaynin oo meesha ku xaraysan baa jiro ma garad kuwo fara badan baa jiro oo yani muxuu ahaa oo aan codkooda la maqlaynin meelay telefoon u diraan aanan lahayn ayaa meeshayda ku jira feber waa isticmaalaa cabdiqaadir saciid aniga feber iyo wax aan lahayn malahan emo feber whatsapp intaba waan leeyahay walaal ma garat telefonkaygana waa midkaas kor saaran waa 80 u dambeeyo marka insha allahu tacaala ruuxii marka wax walbana waxaa muhiim ah sidii looga bixi lahaa lama fiiriyo waxaan maxaa u dhicin lama dhaho soomaali badda waa ku dhamaatay saxaraha libiya waa ku dhamaatay oo yemen way ku dhamaatay angola way ku dhamaatay south africa way ku dhamaatay ma garatay intaanoo dhan
يعني حماسد ير باجرته أو يعني مركي دبعتها أوكا دعوة حماسد ير ayaa jirta de islaantan iyo cabdisiciid oo islaanta hadaysan fiber lahayn aniga fiber sida maamadan telefoon yar bay iska wadataa wixii aad ugu talagasho waad u diri kartaa hadii kale waad nagu soo hagaajin kartaan waa usii gudbinayn haddii aad igu soo dirtaan aniga personal ismaaciil ahaan isla berri hadduu ilaahay idmo qofkii lacag usoo dir maamadaas ayada ah intaan waco lacagta online ay ku qaadato ayaa waxaan u samayn karnaa يعني محوها أنيقا واحد يقصو وعي كرتا صاحب خالد تلافون كي كورو صارين فيري إبر أفر لح تضبل لح إبر شن سدح سقال أفر سدد إبر إد الله لإدي نوغو سوها قاجسو هداد $100 أصود درتو هداد $50 أصود درتو شركة دا أيضو تالو أيان أترانسفير قرين أنا معمضة سيدة عدو إلهي إدم إن شاء الله وإنا قاريسة إلهي إدم كيس روحي أصود درنا ماركينو تلافون كي text message adigu soo diraysa anigu aan magacayga intaas lacag intaas maamadaas kugu soo xawila daad tiraado waan u transfer gareynaa ilaahay idinkiis marka walaale waxaan idinka codsanayaa marka taas waa midda maamada waay middan maamadan maalin walbo maya waxay joogtaa maamada ifay joogtaa ifo dhadhaab ayay joogtaa kaa kuma ma joogtee dhadhaabay joogtaa dhadhaab shirkad walbana toos ayay u heli kartaa telefonkeedii kaas way hadda ayada kolbana oo meesha kusoo qorotay waa telefonka aan idin soo diray waa network inuu ku xun yahay baa laga yaabaa marka ruux walba wixii ugu talagalo ha u diro marka waxaa la doonayaa arrintaas inaan iska soo afjarno oo dadka dhibaatadan mar walba dadkeen u horseedo waa shacabkeeni qaar ka mid ah luqad af soomaaliga ku hadlaan يعني محوها إن أنا وحبة دورنا إنه شرف لا ويلا كان هذا تان قبر ولا شيء الصومالي جيرجون كاس يجوكتو أغون شيء تمن سنة جرأة أو يعني محوها دي جدي كوجر قرتمايو يعني وحوا ضعيف نموه يا قف بني آدم مسلم أو حسوك الكلام سورته ده يا ألو السلام عليكم أحمد أهل السنة والجماعة سيرتاي صاحب معنا أحمد أهل السنة oo Stockholm joogay miyaa isku kala way kan waa fiicanahay lacag baa loo baahan yahay ninka dhiblowga oo yaani saaxiibka ah qaraabadaadi way kuma dhahaaye lagu soo xira la doonaya ma garad Ahmed hello ko آد ما شاء الله إلهي أنه أقبل آديات كفارتي أو خوارج تهت سيفي عن كجر قد كوحير ننم ماشان برهوين الجواب سي ولا لعكت أصدر يسمى مدة أن دنجود دريال شعب مية مسوى مدة أن maamada tan maamada haday tahay telefonkeedii waka qeybta comments ku saaran yahay waxay joogtaa ifay joogtaa maamada telefonkeedii halkaas uu saaran yahay ka fiirsa meesha iyada hadduu ilaahay yiraahdo hadhowna waxaan soo saari doonaa qeybtaas edit intaan ku sameeyo waxaan ku hoos qori doonaa telefonkeyga hoostiisaan ku qori doonaa marka insha allahu tacaala maamada halkaas ugu dir haddii aad ku suurto weydo inaad halkaas ku dirtid oo maamada aad ugu talagasin telefonkeyga waka kayga kusoo qori kartaa message ka soo raacin kartaa maamadan waa loo transfer gareynaa insha allahu tacaala taas aad ogaanaysaa khayr allah kusii khaalidow axmed ahlu sunna walaale axmedow insha allahu tacaala waan isu imaanaynaa Stockholm baan isugu imaanaynaa ma garatay محاتري habar gidiray waa wasiirada mid ra'iisul wasaare qaado ma fahanti مرصد قبل سي هبر قدر محا مرصد هبر قدر محي كلي ابو ولاله wala way dhageyso هاي iyo in ma taqaana wasiirada cadaalad u qaybiyo inta ma dhicin marka waxa
أحمد إن شاء الله وكوكو سؤال أحمد وتليفونك ضد بدنا السؤال وكوكو سؤال أحمد إن شاء الله شيخ أحمد هلو marka walaalayaal barnaamijka ciribtirkiisa waxaa waaye keliya waxaan ugu bixi karnaa dhibaatadana haysato waxaan ugu bixi karnaa dowladda Soomaaliya oo la garab istaago oo aan cidna looga aabayeen hadda wadaad waad maqlayso waa nin sheekh ah waa saaxiibkii waa ninkan Axmed Ahlu Sunna la yiraahdaa wuxuu leeyahay maxaa habrigidir ra'iisul wasaare loo siin waaye magaratay maxaa wasiir fiican loo siin waaye يعني wuxuu kala oo yani leeyahay hadii yani muxuu ahaa ragaas aad u dhaaranaysaan oo inaad hadii qodax muddo yani waxa waaye qabiilba waa isku baabi'i doonaa buu yiri marka waxa waaye anaka qofna ma dilayno qofna yani dulaan oo nafsadiis kuma nihin laakiin sharciga ayaa la tigsanayna waa xirayna haduu ilaahay cid walbo oo ummadan dhibaatayso wixii tabarteeni ah anako dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed ee soo dirto la kaashanayno Soomaali dhaqaalaha ay noogu yabooqdo ama soo dirsato waxaan ku difaacaynaa dowladeeni waxaan ku difaacaynaa dalkeeni waxaan ku baabi'inaynaa qabyaalad baan ku baabi'inaynaa haduu ilaahay idmo taas ilaahay ballankiisii baan ku galnay bil ramadaan baa lagu jiraa cid aan kaga hebaysanayna malaha si fiican ay dhageysto qof bini aadam ah haddii yani hataa uu maantayto ragga dhibaatada wada haddii hataa Vladimir Putin awoow u ahaan lahaa ninka maanta adduunka ugu baawur sareeyo ama Donald Trump hadduu wax u yahay hataa wax baan ka qabanayna anaga ma garatay insha Allahu taala allahna ilaahay baan ugu dhawaanaynaa qabiil 27 sano 30 sano ayuu haystay 30 sano ayaa la isbaabi'inay 30 sano ayaan barakac ku jirnay ma garatay wixii hadda ka dambeeyo waxaan abuuraynaa shacab caafimaad qabo oo fiyow oo ka fiyow shakhsiyaad maantayto والله هدي هويدي أبيه أي دلان هويدي أبيه هدي دلان والدولة الصومالية علنك الصومالي إن لا دباتي ورادينايو وأنا دجالمايا والله وبالله تعالى وحنا مرخاتي هذو قاضن كرتان فيديوي قار كميد مركي حلبانا والله صحولاي أذيركي أبيه أبوك هويا أيان دجال لجلي أول بالجنرال أو لا يقانو ما قرت oo aabahay la dhashay ma garat markuu wax qaban waayay kursigii asaga ahaa ana la dagaalamay yani muxuu ahaa dagaal adeerkii ana dagaal la galay kursiga asaga ana ka qaaday ma garat aabahay buu la dhashay ya yani inuu dambaabo unsur akhaaka zaaliman oo madluuman waarinta sayida ma garat turkii sidaas daraadeedii warkan hooyaday aabaha dhaleen hadduu zaalim yahay oo mujrim yahay oo zaalim yahay ummadda isku diray oo dalka burburkiisa uu ka shaqeynayo oo 24 hours gubaabo ku jiro reer hebelay qori hala qaato qori intuu yaala qori mar rabo la iska qaaday qoriga xagee buu yaala wala sooxada ila waa ishaalognahay dhaqaale dhamaadi lacag dhamaatay dahab waa la gaday wax walba la sameeyay yaa reer hebelay waa la sugulmiday xagee maanta wax yaalo ma garat hal xabo ay hayaan kuwa maanta to qabiil ku faano xabad ma hayaan dowladnimo wax idin dhaanta malaha waxaan idin leeyahay oo idin ku talanaya kuwa la dhashay iyo kuwa yani qaraabo ay leeyihiin ragga aan ku socno sharciga inaan la tiigsan aan doonayno ummadda Soomaaliyeed la kaashanayno dadka idin ka dhashayna waani ummadda ka fujiye haddii aad doonaysaa inay nabad galaan haddii aad doonaysaa inay Yurub nabad ay ku joogaan oo sharciga inaan lagala noqon hadday doonayaan dhammaan way soo tahriibeen oo waxay ku joogan dalka marka horeba humanitarian bay ku joogan kuma joogin United Nation Convention kuma joogin ma garat ya United Nation Convention kuma joogin Convention 1951 kuma joogin waxay ku joogan waa la isla ogyahay sharciga UN kana wixii qoray waa ognahay ma garat 18 sano ayaa United Nation u shaqeynayay ma garat ilaa iyo Geneva sharciga Geneva wixii uu qorayo ayaan ogahay aniga ma garat waan la tiigsanayna eedaan ugu heebaysanin malaha laakiin Soomaalida samaha jal waxaan kaliya ku codsanayaa qabiil meel ka soo baqbaqleeyay iyo hebel baa qodax muday iyo mid baa dhintay iyo kuwa la dilay iyo war waxaas anaka ma qorno ma garat
waxaas waxaan u aragnaa yani waxaa waaye wax oo yani maalayacni baan u aragnaa anaga ya ma garate wallaahi kuwa meelaha hadda telefoon inay soo diraan ay ka hadhadlaan baa laga yaabaa face to face inaysan horta intay soo istaagaan kelmadaha qaar aysan ku hadli karin ma garate hadday ku hadlaan argagixisada caalamiga ayaan u aqoonsanaya inay shabaab yihiin baan u aqoonsanaya inay kuwa dadka ummadda laayay inay yihiin baan u aqoonsanaya ma garate ya waxay noqonayaan kuwa keliya oo yani muxuu ah kuwii aniga 9 xabadood igu dhuftay bay noqonayaan ma garate qofka isku dayo inuu nin daalim ah qabiil uu ku difaaco ha soo istaago magaalada waaweyn tahay imaamo alo asalaamu calaykum ha walaale waa fiicanaya walaalkay saas yeel walaal macaane wixii awooddaadii amaamadaas ifay joogtaa ha loo diro insha allah laakiin barnaamijkeeni waxaanoo dhan waxaa sabab u ah dowlad la-aan bay sabab u tahay iyo qabyaalada arrintaas sidii aan isaga difaaci lahayn waxaa laydinkaga baahan yahay dadkiina sweden joogo yani lacag baa laydinka rabaa ilaahay idinkiis ma garato lacag baa laydinka rabaa walaal macane insha allahu tacaala aad iyo aad walaal macaan aad iyo aad waad umahadsantahay walaalkay ma garatay marka waxaan doonaynaa walaal qofkan waxaan u malaynaya 966 hadaad hadda kusoo celisad okay waa marnuu barnaamijku waa soo gebagabeyn rabaa wixii kool hadeertaan u baahan way soo wici kartaa telefonka hadda waa free waaye sacuudi arabiya miya mase khadar waaye soo wac walaalayaal insha allahu tacaala waqtigii cibaadada la jooga hadduu ilaahay idmo waxaan doonayaa inaan ka gaarsiiyo salaadaha taraawiixda marka waxaan idinka codsanayaa walaalayaal ha isku dayin inaad daalim aad difaacdid ma garate asaga ayaad lamid noqonaysa sharaftaada ilaasho ma garate inaad daalim aad difaacdo aad naga difaacdo ha isku dayin ya muxuu kuu tarayaa ya kan hadda kuwa qaarkood ay leeyihiin maxaa nin reer hebel ra-isul wasaare loo siin waaye ra-isul wasaare haddii lagu siiyo gurigaaga adi mu ku biili lahaa mase dowladda dadku wax u qaban lahaa adi maxaad ka istifiideysaa bal ii sheeg ya adiga maxaad ka istifiideysaa haddii wasiir fiican beeshaada la siiyo beeshaada wasiir fiican ay qaadato adi maxaad ka istifiiday bal ii sheeg maxaa faa'iido kaaga jiro ma ku yaqaanaa ma kula soo xiriiraa muxuu kuu tarayaa ya adeer marka iska daa maangaabnimada iyo doqonnimada iyo ya doqonnimada iyo waxyaaba aan loo baahnayn iska jooji dowladdaadii dalkaagii difaac ma garate maantayto waxaa hubaal ahaan lahayd haddii maantayto ya ilaahay agtiis waxba kama ahan ayaan dhaweedna marba wasiiradii haddeertaan oo la magacaabay baan ku jiray ilaahay calafkayga kama dhigin wax walba qoraar rabbaani ah ma garate meelo kale unbaa liiga rakaateeyay lowla aan maantayto wasaaradahaas aan kamid noqon lahaana ya soomaaliya waxay u kala bixi lahayd yani muxuu ahaa waa la kala baran lahaa dalkan dalka in dad leeyahay keliya maantayto waxaa taagan dagaal ku jiro habeenii maalin madaxweynaha ra-isul wasaaraha waxaa hawshan maantayto hataa wasiirada qaar kamid a maantayto yani boosaskoodii kama soo bixin wasiire fara badan oo loo malaynayo inay khatar yihiin hadda yuusuf garaad oo kale muxuu hayaa ila runtii inaan isu sheegnaa muhiima sooma midkan gaashaandhigga oo aniga walaalkay cabdirashiid yirahdo muxuu hayaa wax muu hayaa maantayto waxay hayaan hab yaraata malahan adeer ma garata uma qalmaan jagooyinkoodi maantayto wasiir soomaali meel ugu soo baxay cabdiraxmaan baylo waay wasiirka maaliyadda waay oo shaqadiis qabsaday intii ciidanoo madax la qorayna ninka la yihahdo sambalolshe cabdiraxmaan sambalolshe ninkaas asiga ah waa nin halyey ah oo qiimo badan waay ma garata kheyr allah siiyo ma garata ila runtiina isu sheegnaa fiican ya maantayto marka ilaahay waxaan weydiisanayaa inuu rag assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa sacuudi carabiya hello waa ka go-ay walaalayaal marka waxaan idin leeyahay yacni qabiilka aada isku difaacaysaan joojiye ma garate war qabiilka aad isku teeda kale waxaan soomaali inaan u sheega aan rabaa
bal horta hadalkan hala sheergareeyo waxaan leeyahay Soomaaliya meel kastoo aad joogtaan gaar ahaan wadamada nimanka qaaqlayaasha ay joogaan nimankaas salaan yaan laga qaadin ha salaamin ma garatay ha salaamin ilaahay dartiis u jara halo salaamu calaykum hadda aniga odkayga hay maqashiinina walaal hadal Sacuudi Arabiya halo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ها واكو مغلا ولا واكو مغلا سعودي هلو واكو مغلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في عن ولا الحمد لله سود دو أف ماي أف معتري أف دبره واحد دون تتكو هذا واقرتي ها maamada dhibaysan oo gabadha laga haysto insha Allah walaal maan aad wad maasantay maamadaas wixii aad ugu tala gashaan telefonkeedii halkaas ku qoran yahay loo diro insha Allah walaal ma garat insha Allah walaalkii waa maasantay insha Allah alayhi salaatu wa salaam marka walaalayaal waxaan idin sheegayaa marka qabiilka runtii wax guul ah oo aad ku gaaraysan haba yaraatee ma lahan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh halo wacalaykum assalaam magacaagi maxaa la yidhahdaa محمد عبد قاس حسن دير مياه محمد عبد قاس اور هير بوضحة ومياه ولا له هير بلدحة وهانجري ما شاء الله ولا المعان واقرتي ولا السودو ان شاء الله تعالى وما سنتاي كولال بدن با itumayo waxaan jeclaan lahaa inaad soo koobtid wixii aad ugu qayb qaadan karto barnaamijkan wadno ma garat haddii aad wax ugu ha bardab dib u fiirfiiriyo daawo insha allahu tacaala waa mahadsan tahay insha allahu taala walaalayaal marka insha allahu taala waxaan idin leeyahay soomaali meel kastoo ay joogto waxaa loo baahan yahay ha loo istaago ummadda soomaaliyeed sidii dhibaatada looga bixin lahaa ma garat degdeg iyo sheeke iyo hadal iyo reer hebel adeer waa dhamaatay ma garatay ya waa dhamaatay arrintaas ayada nima cabdi waryaa cugdad kaa buuxdo okay mahadsanid walaa shay macaani waxaan kuu sheegayaa waa runtahay aniga dowladda xasan sheekh maxamuud waa kasoo horjeeday laakiin waxaan kasoo horjeestay 2 sano kadib markii aan arkay waxqabadkeedii aan arkay baan kasoo horjeestay waxaan arkay dhac fara badan oo hantida qaranka Soomaaliyeed lagu hayay baan arkay adigana markhaati baad ka tahay sidaas daraadeedii baan ugu soo horjeestay xasan sheekh maxamuud hadeertan waxba isuma haysano waan isla xiriirnaa turkigu jooga ma sha Allah jaanis lagu la hadlay uu yeeshay hadaa doonto deeta telefoonka soo ku soo diraya Ismaaciil Booliyo wax ma u qabtaa dhe hadii haa uu ku yiraahdo anaa magay haduu ilaa waad maasantahay Naciimo insha Allah wala shay ma garat marka insha Allah taala dad badan ba waxaas aaminsan xasan sheekh maxamuud waan ka hor imaanay waxaan ugu hor imaanay war dawladii way socon weyday ma garat hadda hadda la hadlayo hadii dawladda maxaa Abdullaahi Farmaajo dariiqa hadda ay ku socoto haday ka leexato ya waa la dagaalamayna ma garat dagaal baan la galayna duu Ilaahay muaf iyo adin laakiin dawlad oo toosan war adiga hadii salaad Ilaahay sidii loogu talagalay aad u tukato salaad ma tukanaysa hadaanay ku dhahay yaani suurtagal ma tahay ya ma garatay ما شاء الله صاحبك غالي سعيد السلام عليكم سعيد لوكسمبرغ ما شاء الله تلفونك ويسف غيرسين صاحب مع سعيد لوكسمبرغ كور لوكسمبرغ كور حالتي عاو والله نيو هو برنامج بان قلني هول علوس بان قلني هوشا سلاغا قيب قاطو مامداس مساكينتا ميا داوتي مامدا دباتدا هيسته ما داوتي مسكو ما سو غارين
maasha allah adig waa gartay may wallahi waxaan diidayaa Soomaali inaan isku diro hanjibaad iima yaro hanjibaad walaal iima yaro laakiin insha Allah mar dhow waan idin soo bandhigi doonaa ma garatay aad iyo aad si fiican walaal soo aniga qofkii wanaag wado dal dhisaayo waxa iga go'aana inaan sameecadaan u furo Soomaalidu way ku maqlaysaa hadal siciidow waa sax marka cid waxaan jabi kartaa ama awood u sheegay kartaa ma jirto ilaa dadana la isreexay cid walba waa meesha joogto way ogtahay haddana booskoodii u noqotay cid wax laga qaaday waa la waayay si fiican marka anaga wax naafici karaa waa qarannimo dawladnimo dhibaatada hadda maamo gabadheeda xiranta ooyinaysa waa arkayay laakiin milyanisa ooyinta ku jirto aad iyo aad milyanis baa ooyin doono xeebtii yariiska ayadoo shisheeliya dhalinyarada ku xiran waad dhegaysataan u malaynayaa safarkayga ugu horey meesha inaan ku aadaan doonayo hadduu ilaa wiilashaas inaan aadan rabaa oo xaaladooda soo ogaado meesha ka soo jeedaan anigu waxaan sida maraayadka kugu jeedaan caadi u aqaanaa meelaan dheernimadii la sheegay jiray allahu akbar allahu akbar kusoo daya wiilashaas xataa ma la hadli karaan dowladnimada marku faa'iidadu leedahay waa ognahay maanaga markaa farculug maanta aan lagugu soo oo dhibaato kale ka shaqaynaysa allahu akbar lagugu hanjabayaa allahu akbar may insha allah waxaa igu ballanaa ruux walbo hanjabaad wato biyaajada wixii ka dadweynaha inaan usoo bandhiga iga go-aana ma garat insha allahu taala soo dhig banaanka cidna ha uga joojinin ummadda wanaagsanaad helaysaa mana hadeena kuuro yahay laptop isbaaraho oo yurub la dhex keensadeen hadeena kuuro yahay hagaagi maayo والله وانا سبارني ولا سوور الجو اللابتوب حقه لا سو دفتay هذه si fiican ciduna ujoojin ma doonto xakabaqin inta wanaaga jecela boolis taagan wuxuu yahay faa'iidadiisa war soo aragnay heerku uu nagaasiyay waan ognahay ciduna maanta cid mu faani karto qof walba inta gacmaha cid walba la isaga daalaan ciduna cid heshiisiina qof deegaankiisa uu qasab ugu noqday allahu akbar aad iyo aad hadda meeshaan gabar baa caawa dhan hadlaysaa oo naciimo cabdi la yiraahdo oo qoryaha farmaajo intuu lacag dhacay iyo intuu hawiye laayay iyo inta qarax dhacay oo la qarinayay maanaa bal ilaahan kugu dhaarshay dhimashada sooma yaro waqtigan xaadirka wixii xamar oo ka dhici jiray oo marka hadda anigu waan ognahay dowlad waa la soconaa xilligu farmaajo qabsaday iyo inta dhacday iyo xaaladdu sida u soo yarahayso waan la soconaa waxaan arkaynaa iftiin nabadeed allahu akbar aad iyo aad bal cadaaladda fiiri si fiican koor maxay ku jireen lama rabo inuu horta iska cudureynaatay lama rabo waqti aad iyo aad hawiyana wuxuu ku cudur qabo aqaanaa waa gartay aniga wax sameey waa oo ninkan wax u sameeyo cudur ka qaba mana shaqeynayso cidii wax shaqeynayda lala shaqeynaya ilaahu khair ku sii oo ilaahu fahamsi waa gartay maana waxay waa gartay ma shaqeynayso marka walaalo cidii wax sameeydane waa la hagaajinayaa cidii wax leeyahay wadanka waa laga leeyahay allahu akbar ma sha Allah الله يعزك الله يعزك maalin walba waxay xamar dawladii timaarada ugu fashiladaan hayda xamar kaliya ugu bajartaan dawladdu inay ka dhaxal ugu diidaa way ku maqlaayeen wad u sheegaysaa caawa ku wareernay heer waxaan gaaray aniga midkii birigii hore siyaasiyiinta dawladda kharabi jiray laakiin hadda waxaan arkayaa inuu qurbaa u soo aroortay sax si fiican qurbihii barnaamijkii qandaraaskii qurbaa u soo wareego wadankii wax laga qabanaya sababtoo dadkii waa baaxday abaara waxaa ku habsaday dhibaata ku habsatay shacabkiya arkay siyaasiyiintii way gabadeen marka hadda dadkii xagga corruptionka ka wada jira way gabadeen dowlad cadaaladuna waa ka dhalatay aad iyo aad maasha Allah marka waxay mar walba waa soo wareegay marka qurbaha laptop isbaaraha la soo dhigtay
waxaa la taagayaa dowladdii saas bay yeeshay hawiye xaggood ka baxday qorigii baa lagaa dhigayahay darood baan adgumun hodon tahay الله mar haddii qor lagaa dhiga xitaa qabiilka kugu imaan karaa ayuu yahay الله ما فهمش الله أكبر الله أكبر ولا ورمت الله أكبر waxaan shaqaynaysaa aan masalan ku rogaya mala shaqaynayso arrintaasna ma doonayno hal walba dad ilaahay ugu raasiyay waxyaalahii soo qaadanayaan wax ku dhaleelayaan wax la qaadan kara ma aha amar baan leeyahay kuleeyahay amar haddaan la helay aw laamigiisi aw gurigiisi الله إلهي بعد أقول دواني سينا رحمت الشيخ الله أقول دواني رمضان بالله جل إله وقرقص والله سمعتها أو قريسي أو لم يشيسي أو عاصمة وقت بنا يا دمي وعندنا لو تشوفي ما يكردي واحد مش شيء دولة أنا أنت وناك سوي راعيسة وقربان تبلا واحد ما هذا الإسكيريا وين دمها هذا ربو كوسو اللي واغانا بريا يا واحد جري جتمت غانا سفيان ويل اسبار جوجا انت مد الهي كنت الغانا ويدا للدليا ما كان waxa la jiray waxa qorba sheekh ila la dilay sheekh reer gal masaajidkii mid hada toogata Soomaa hada diil soo fadhiisan jiray qodobada isbaarada la jooga ka qurbaha intuu soo hilindi isbaaradii ashi khabara la dilay واقرتي marka taas Ismaaciil xabbaha u joojin telefoonka dhigta digaaga shanaysid bedel cid ku hanjaba umadu hawada aragto dadkaas ragba inta carafar la qaado lacag uu soo shubi doona إلهي إذن idna ha u joojin بالله وحي وإن سمعت إذن فرو أنا وحان إسلها رجال قبيل كبطاعة أو كسو ويرى وحان إسلها بالعيب طول أسطر Soomaaliyeed taala ka badan عادي jacayl dowladnimo ka badan inta dhibaatada dhimida ka badan inta wax inay dhibtarta inta ka badan ma adoo dadka xishoonaya dhumidii uu shaqo yiri daduna danihiisa gaarka ugu mashquulay in dhibaato rabtada qabsatada saxaydu rabtada الله أكبر الله أكبر والله بالله ورحمته ولا لك عاديات سعيدو يعني dadka inta wadaga jacayl raadi hay isku xirma si yani حتى بركة لايف كسوقني سواء كوكو كردينيا دكارو غير كورو ياي دكا وحكولا شيغا سي ادن ugu daalin ما هو بصاص واي ودبك نمبر 1 رجل وحي حسابتماد كمتay walaal ma garatay ma sha Allah qofkii su'aal la soo weydiin waa loogu jawaab hadii wixii ka dambeey barnaamijku waa balaarinayna adoo halkaas joogo ayaad ugu qayb qaadanaysaa wixii su'aal ah oo la soo weydiiyo qof walba si loo daaweeyo ma garatay insha Allah ta'ala walaal haddii habargeeda wasiiro fiican la siiyo habargeeda wasiirka la siiyaa ma ayagu u shaqayn lahaa مسوا قرن maxuu qaba rabay beesh bana inuu Soomaali u shaqeeyo la doonayo oo dalkaas inuu badbaadiyo hadduu Soomaali u shaqeynaya qaybre waa nin hadeel ku rahawiyaa waa haddii hawiynimo doonaya waa nin walaalkooda waa nin uradka hawiyaa ma la shaqeeyaano الله أكبر واقرت حبيبي اللي اسمه شيقيا أنا وأنا إلى عبد القاسم لما رفع روحه كله ما يستي قولوا كذا لما رفع روحه كله ما يستي أسوأ من احتويه تيجي واحد ودي يدونه ولا بيها حبيبي اللي يستقصين يعطيه أين جوجين دقدقتي حياة الله أكبر إله غيركسي واقرتي ملحتويه أفرسل وحجوغي حبيبي اللي يستقصين يعطيه دقدقتي حياة أين جوجين وأغنى أنا والله إننا ما نتعلم عد قبيل إيه وحاصيني وجورنا من قبيل إيه وجورنا دولة ما دونيا دولة ما حاجة أكثر أيضا نافعيسة أيضا هو يجسوني دي أنت كتري كفت أيضا هذه الكرة كحبسية وكجورة سودي كفت أيضا قد لول معاملة اللي هليا أيضا قد لول معاملة اللي هليا ما دوني نمر تبو ما تبو أنا جاي هبل تبي واحد تبو لو تبو في اللي هبلكا واضح معك اسمع الواد بلارنيسا واحد سمينيسا هذول كورة عد الله عندي هنجبتا دبت صونك إلهي خير قصي وسعيد سعيد وخير الله كسي ولا لك معانا أو قربان هلي قربان إيتهاي واد ما سنتها ولا لك معانا جزاك الله خير ما شعرت ما شطعوني أنا وأنا سلامي يا خير بدن
أنا ملايين أنا غار بدر هذا كم تيجي عايز يسوق قرية لكن أبغى جحد وأنا ما بسلام waxba u arkin walaale insha Allah waxaa ka weyn Soomaalinimada ka weyn wax walba insha Allah taala Saciid wallahi Saciid wuu hadlay waxa waaye yani waxa waaye allo salaamu calaykum السلام عليكم هلو 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 حسين حاشي عدكاغي وصو مقلي الله هيسا معان هلو السلام عليكم ها صاحبي ور حسين حاشي ما في عنتاي ما شاء الله حقي جوجتا naga soo wacday soo dhawow walaal barnaamijka wad la socotaa sooma ها walaal macaan marka go'aankeena wuxuu yahay inaan Soomaalinimo aan raadino iska qabno mid walbo dawladeeni inuu fashilay doonayo inaan iska qabno shacabka inaan ku jeedino inaan la dagaalano inaan sharci caalami la tiigsanayaan doonayna haduu Ilaahay idmo dhaqaale ururin baan ku jirnaa waxaan soo deysanaynaa raggeeni meel walba ku xirxiran sida yani muxuu ahaa Shiiliya haday noqon lahayd Angola haday noqon lahayd kuwii Hindiya TB-da ku leeysay oo ku xirxiran marka waxa waaye xisbigii dangu daryeel shacab waaye gudoomiyihiis nin kula hadla Ismaaciil Boolio marka walaal insha Allah taala wixii aad hadii aad ugu qeyb qaadan karto Xuseen Xaashiyow aad baan u danaynaynaa wixii tabartaadii ama garat Xuseen Xaashi walaal macaan marka waa khayr la ku siiyo wixii aad bixin karto dadkaaga walaalahaaga xabsi ku jiraan loo gargaar lagu soo daaynayo kuwa dawladda Soomaaliya habeenii maalin beenta ka faafiyo inaan sharci la tiigsano oo dawladihii ayaga ku hoos noolayeen safaaradahoodii email walba barnaamij baan isku xirxirnay waxaan doonaynaa inaan karaamada ka qaadno ma garat aad walaal aad waad aragtay maamo caaw oynaysa ma aragtay xariyaha qaxootiga ha taas kugu kaloon hadlaynaa jiro hadda kugu Soomaali kaloon oo hataa codkoodina soo gaaraynaa jiro oo maamadan Ilaahay baa wuxuu u sahlay dad oo ilbax ah oo codkeeda soo bandhigay heshay kuwa aan codkoodi wax soo bandhigaan lahayn oo gabdho leh oo dhalinyaro leh oo wiil yar qaar la foobay baa jiro Liibi ku xiran ma garatay إلهي هنا قبض لكن أنا كأسك قبان كرنا وأنا أسك قبان كرنا أقول إلهي وحنا قبضه لكن وحلوب هي هنا أكشن قادنا ولا المجرتين عدك واسيد داي ومضى الصومالي وش كاس وكلوا إن اللفش اللي مهم واي لا هذا تدوينه هو كمقلا يعني محاتري حسين حاشي waxaan jiranahay dad badan oo afka Soomaaliga nugula hadlo oo nolol midaba oo Soomaalinimada la sheegto laakiin dana kala u shaqeeyo amba meel kala joogan baan aad Xuseen si fiican kuwaas oo kala ummadda duminayo waliba dad xataa qabiil kula sheeganayo meesha dad maalmaha waxaan ka arkay baraha bulshada dad oo maartay qabiilada qaar ku sheeganayo oo qabiilada qaar ku yani ku qaraabanayo ma aad waa gartay nin dhammaan ilaaha weyn oo meel wuxuu la soo fidisana qabiil hebela maartay ra'iisul wasaaraha ka soo horjeedo qabiil hebela mooshin ka keeni karo war dawlad iyo qabiil maxaa isku keen Allahu akbar bal u sheeg ha maqlaaneen markani waxa ninkaas waxa leenahay caruurtaada dib u leh Soomaali way dhaqaaqday adigu ku istaagi mayso inta xumaanta rabto waxa ka badan inta samaar jecel waxaan leenahay qurba kuma hay doono waa aragtay wadamadan hadda aan joogno anigii adiga iyo kulli qurbaan wada joognaa dadka maanta bidana qurbi wada joognaa si fiican oo wanaagsan hala share garay walaal hala share garay waa hadal muhiim ah way loo baahnaa waa gartay marka birri waxa kugu filanyahay warqada shala ana ku siiyay inta kana wadakaaga orod aad ma fahmin Allahu akbar wala ma oga taas ay kuma xisaabtamayeen waa sax qaylina waxa ku sheegaynaa anigu waa qorbood garaynay magacaaga imaashid waxa dhoon loo qoriyay birri xataa wadanka nabada uu noqdo oo soo laabad wallahi maxkamada ku saari doona kuma iloobi doona Allahu akbar Allah ya'izak ma sha Allah walaalkay macaan maxaad ugu tala gashay barnaamijkan anaka waxaan doonaynaa raggan dacwad inaan insha Allah inaan aamusino bisha Agoosto
kiiskooda inaan iska soo gebagabayno ayaan go-aan ku gaarnay. Lacag baan aruurinayna, looyaraan lacag naga rabo. waxaan doonaynaa wixii awooddaadii ah $25 $100 $50 wixii aad awooddo waan u baahannahay. ninka la yidhaha xuseen xaashiyo ma garat maya gacan looma qaadayo, sharcigaa naga celinaa walaal macaani. marka wixii aad noo magacaawdid waa ku xisaabtamaynaa, liisaan qoranaynaa. aad iyo aad walaal maasha allah. marka waxaa waaye wixii aad noo awooddo inaan ku xisaabtan aan doonaynaa. rag kaloo camerad diidayn halkaan ay fadhiyaan oo diidan oo camerad in lagu arko yani hadduu ilaahay ku roon yahay. marka insha allah wixii tabartaadii ah noo magacaawo adi awooddaadii ay la eg tahay ma garatay. $25 maasha allah. insha allah shirkadda kugu dhow ayaad soo dhigaysaa, magaceygiina hadduu ilaahay mardan kuu soo qorayaa. shirkadda kugu dhow ayaad soo dhigaysaa. maasha allah waa muhiim waay. $25 lacag yar ma ahan. ilaahay ha kugu anfaco. haddii saaxiib kale aad leedahay kuu dhowna kasoo qaad, waa 400 koroon meelahaas waaye oo koroon norwegian konta intaad kasoo dhigtaan haddaad isoo raacisaan maasha allah waay ma garat. insha allah walaalkay xuseen xaashi numberkaagu ii qoriya insha allah. waad mahadsantahay xuseen xaashi norway insha allah walaal. haye norway okay asina walaal macaan walaalayaal. marka insha allahu tacaala aniga waxaan doonayaa hadda waa 7 saac iyo waxaan u malaynayaa waxay ii tahay 1:18 waaye. waxaan doonayaa insha allah inaan barnaamijkii naga qabo fadlan ina maxmuudi waa laga qaban, waa lagu soo wacabaday. asalaamu calaykum ina maxmuud soo dhawow walaal. caafimaadkaaga wadankee joogtaana? haa walaal wadankee joogtaa? adaaba kool kale kusoo galay. maxaan sameynaa ina maxmuud adaan ku dulqaadanayna. hallo ina maxmuud وعليكم السلام walaal kool kale hanaga aadin, dad badan aan sugaayo adaan ku soo waa qof kale ma weyn ayagan soo waco dadka walaal intee joogto Francisca joogta ma sha Allah. magacaaga rasmiga maxaa la yiraahdaa walaal? ma sha Allah ayaan maxamuud. walaal ku gaara hata Libyaan ma waa Moroccan oo caloosh u shaqeystay oo meesha jooga Moroccan way ma garatay. aad الله أكبر. الله نحرس آديات الله أكبر. الله يعزك barnaamijkaas waxaan doonaynaa inaan ciribtirno kuwa fikirkaas qabo, shacabkeen inaan kala wareegno, wacyigelin aan u sameyno,
ayagana maxkamad aan la tiigsano ayaan doonaynaa. wax baan aruursanaynaa, lacag baan aruurinaynaa. maxaad nagala qayb qaadan karta awooddaadi tabartaadi ilaa $50 $50 $100 maxaad noo awoodaa? ilaahay subxaanahu watacaala kheer ha ku siiyo, dee ilmahan alla kuu daayo. waxaan doonaynaa inaad nagala qayb qaadato barnaamijkan, ma garate. €25 ilaahay kheer ha ku siiyo, waxay u dhigantaa $30 meelahaasaan u malaynaya walaal macaan, insha allahu tacaala euro, insha allah walaal macaan. lacagtaas ayada aamiin walaala. خير الله كسي ولا شيء إن شاء الله تعالى. تلفونك يجوا حيجي هل كاسي قرين مجا وإسماعيل أحمد آدم بالي هذا مسج هان وكوكو صدر هذا ولا هيد ولا شيء معنا إن شاء الله. أيوة عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وافي عنا ولا الحمد لله. بقول كيف بقول ما حد نوها يسان نو وصل تلاقي شيء وقلت تلاقي شيء الصوماليين أنا وهي لنا هذه برنامجك وكل شيء يا برنامجك إلى شلي ووصل هذه ولا لو حمدونينا إنان يعني دولة دين قرب استاجنو بمقلسة شعب حلال إيران صوصر نمدونينا قدتك الدولة مالين والب أما شعب الصومالي الجريمة ده كجلي أو قاركود أكتاد الجوجان قار هل كان جوجان أو قارن دمسكة إن لدى قالنو قاف شرعيا إن لدى قالنو أو أن إن شاء الله تعالى ورقدها والدمضة أيسيين لقالن نقضو أيان كشقيننا ما قرت كدم الدل كودي اللي جيو مركز كدب دولة دي مركز أو دولة الصومالي أي محكمة ديستو ما قرت dadkaas jariimada galay baan ka shaqaynaynaa ayagii baan yani muxuu ahaa inaan waxaan doonaynaa si ilaa hadda ka hor qof yiraahdo waan la dagaalamaynaa ma soo bixin oo Soomaali ah maantayto in muddo ayaan hawshan wadnay waxaan ku guuleysanay inaan lawyer international aan helno hawshan gacan naga siiyo dhaqaalana laga rabaa waxaan doonaynaa barnaamijkaas haddii markii wixii tabartaadii ah magaago sidahan aad nasiisidoo nagala qayb qaato waxaad awoodo $100 $200 $50 $25 ugu yaraan wixii aad awoodo inaad nagala qayb qaadatid baan doonaynaa walaal macaan ma garat hello يطلع لك حمودات كان كوكو علينا هنا أمريكا وأمريكا أنا وأنا يعني هدو الدنيا ساق سؤال هدو إلهي مو إن شاء الله تعالى ساق سؤال دون دقيقة قدودي الدنيا ودني هي ودلكيس إنه الاسم وربا وفي ودني أنا هنا أسياب صو عتمينينه أسياب عرايب إلين يعني قفكي ودني أنا هنا وتوق أو هدونا يا إنه دلك دو إلهي مو بابيو إسماعيل أحمد ستوكهولم سويدن وكاولا نمبرك إن شاء الله تعالى كاسة صوب رئيساء أيام ونبدأ ياسمين أوكي ياسمين 447 أوكي waxay joogtaa UK kuna fog ياسمين habeen wanaagsan seetay walaal Ramadaan Kariim وفعلا ياسمين waxaan aruurinaynaa lacag baan aruurinaynaa dawladda Soomaaliyeed aan ku difaacno hooyooyinka ilmahoodii dariiqyada lagu haysto ku badbaadino insha Allah qarankeena inaan garab istaagnaan doonaynaa lacag baan aruurinaynaa wixii aad noogu tabaruci lahayd aad baan u soo dhaweyn lahayd ma garat lawyer baa lacagtaas lawyer baa la siinayaa ragga qalqal idin geliyay habeen iyo maalin xabadaha beent idin shidaayo oo Yurubta nala joogo ayaan qabanaynaa hadduu Ilaahay ma haddaysan toobad keenin ma garat marka
jeebkiinaan u baahannahay insha allah ilaahay subxaanahu watacaala meeshaad ka bixisaan sababto isbaaraad qaadaysa qof yani munkar zuulinayaad lamid tahay munkar waay waxay wadaan waa munkar ma garat waad aragtay hooyo oo saxaraha liibi gabadheeda lagu haysta ma aragta la oynayso marka waxaa waay waxaas oo kale iska jiro waxaan doonaynaa walaal macaan marka insha allahu taala in nala garab istaagtaan reer UK hadduu lacago badan baa insha allah ka helnay hasi ahaatee dee wixii adiga tabartaadii ah waan daneynaynaa insha allahu tacaala ma garatay yasmin adiga laakiin shaqsigaaga hadda wax oo maasha allah adiga khaasatan waxaad awoodidoo qoran oo isku halayna ma jiraa insha allah wixii tabartaadii ahaa tabartaada ala qabo mahadsanid walaashay macaan yasmiin aad baad u mahadsantay walaashay macaan yasmiin magacaaga maxaa loogu diraa insha allah mahmud okay teleefonkaagan kan ley soo ma UK anigana keyga waa kaas ismaaciil axmed aadan ma arkina muxuu ahaa ayaad kusoo qoraysaa Stockholm Sweden ayaad kusoo hagaajinaysaa walaal macaan insha allahu tacaala حوالات الله أي مدة دونتد إن شاء الله الله مدة دونتد جزاك الله ولا شيء معنا جزاك الله ولا شيء معنا إن شاء الله تعالى إن شاء الله ولا شيء معنا هي إن والله ليال برنامج وصوق بجبيرين هدو إلهي إدمو مردو سحورتي ذا بسودو وضن وحان جونا حالك إلهي أوجي هاي نحنو ملاينا يا برنامج كا إن أكوسو جبيرين ياسمين قبل ولا شيء UK جوكتو خير الله سيو nimanka isbaaroleyda yani qeyb weyn bay ka qaadatay in lala dagaalamo in dadka Soomaaliya xabsiyada ku jira laga soo sii daayo qeyb weyn bay ku qaadatay ilaahay khayr ha siiyo waan u duceynaynaa marka rag fara badan uu kamid yahay ninka la yiraahdo liban Soomaaliya oo qadar joogo uu kamid yahay Abdishakuur Baris joogo uu kamid duniya Sheekh Maxamed ay kamid tahay yani dadka aaw lacagaha maasha Allah noogu yabooxay uu kamid yahay Assam sheekh uu kamid yahay hadduu ilaahay ku roon yahay Xuseen Xaashi Norway joogo kamid yahay ayaan maxamed ay kamid tahay yasmiin maxamed UK joogto kamid tahay dhammaan waxaan leenahay dadkaas ayaga ha loo duceeyo beri garabna dad badan oo insha allahu taala idinka markaan kadib haddii hataa camera aysan idin qabanayn inaad duceysaan la idinka rabo culimadiin halkaan fadhido ilaahay idinkiis waadna mahadsantihiin walaalayaal maasha allah ha loo istaago Soomaali maanta waxay u baahan tahay dad badbaadiye u baahan tahay ha loo istaago walaalayaal mar walbana barnaamijkayga waa online waay waxaan habeenii maalin aan usoo jeedaa ummadda Soomaaliyeed danteedii waxaan codsanayaa marka saacad alaale saacadaad doontaan waad isoo wici kartaan dadka Australia joogo kuwa Canada joogo kuwa Mareykanka joogo meel alaale meesha joogtaan daqiiqadaad doontaan waad isoo wici kartaan waxaa kaloo idinka codsanayaa barnaamijka la sheegay waxaan idinka codsanayaa dadka fidnawadayaasha ah barnaamijyadoodii oo 200 oo qof 300 500 aad ku daawataan qabiil aad ku taageertaan maalinka qiyaamo ilaahay waa idin xisaabtamaya ma garatay wadadka xumaanta faafinayo hadaawarin indhihiin ilaahay uga cabsado midka qabyaaladistaha ah oo xambaarsan qabiilka doonaya dadka leeyahay hubka qaata hala dagaalamo ku hayo waa inaad iska ilaalisaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin barnaamijka waxaad ka soo qaataan kaanama ano online ah saacadaad doontaan isoo waco teleefonkeyga waa kas cid looga cabsanayo malahan waadna mahadsantihiin welcome dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay meel kastoo aad joogtaan maamada haddaa ay oynaysay oo tan ay tahay mar labaad baan idin tusayaa waxaan ugu bixi karnaa keliya dowlad ma garatay annakoo dowladeena taageerno wallaahi wax ka darna la soo diray subxaana allahi caza wajal inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun warheeda kuwana may dhikar igu ridaan subxaana allah bal meeshan bal وجد الصومالي من جد وادت كذا كل ما يجري وين داي بيجي وحي وضعنا يا سيدي بالليل أوكل إن الله وإنا إليه راجعون داي وكا
hal nin oo doontaas ku haraya ma lahan dhammaantoodii way doontoo dhan waa degaysaa khalaas waa u dhamaatay inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lillahi wa inaa allahu akbar waa kan gabadhii quruxda badneed magafe u gacan gashay waatan oo hooyadeed oynaysay ya mujeedaan waa gabar soomaaliyeed 15 jir ah ardayd bay ahayd wata gacan cadow bay ku jirtaa maxaan ugu bixi karnaa dowladdeenu taageerno ya ma garatay waka soomaali maamadii wataa mujeedaan walaalayaal mujeedin maxaan ugu bixi karnaa dhammaan muslimiinta walaalahayga muslimiinta maxaan ugu bixi karnaa waxaan ahay hooyo dhibaataysan oo qaxootiga Dadaab ku nool oo gaar ahaan Ifa ku nool walaalayaalo waxaan idinka codsanayaa gabadh yar oo aan dhalay oo agoon ah oo nimca Suldaan Cabdiraxmaan baa aniga la yiraahdaa gabadheeda waxaa la yiraahdaa Sumaya Jaamac keena diid baa la yiraahdaa gabadh yar oo miskiin oo 15 jir oo iskuulka daar xigma ii dhiganaysa qaxootiga Dadaab ayaa hooyo macaano iga tagtay oo iga carartay oo iga aaday Liibiya oo Liibiya iga gashay oo maxay $8,500 oo lacag keenta la yahay $8,500 oo lacag ma haysto waa agoon aabbo male ehelkii iyo adeeradeed baa wadankii wacay waxay yiraahdeen waxaan hayna male hebel wiilkiisii baa maqan oo hebel wiilkiisii buu hayaa gabadhaada waa kugu keli waxaan hayna iyo waxaan ka bixin karra male baa la igu yidhi hooyo macaano waan idinka codsan dhammaan muslimiinta meel walbay joogaan dunida daafaheeda bishii rabada khayrkan ku jiraa bisha khayrkan ku jiraa ku fidri ii heli kara ku sadaqa ii heli kara ku waalidkii oo dhintay jannadii fardows allaha ka waraabiya oo bixin kara nin walowba kitaabkaaga inuu ilaahay midigta kaa siiya nin walowba wixii midabkayga oo wixii islaam oo dhan muslimiin oo dhan oo yaa muslimiin yaa muslimiin يا مسلمين بيتين تاجنتها يا مسلمين بيتاجنتها $6,000 قبلك كنا واقوم ومسكين وابوما يكوا كيسارنتها هو يا قلب بعد أخي وكوان مخشاب أذكر الله اللي سجى أو كسر سبي أو حرام هينين يا وحن سرنا شوقي هو يوقوس أدي وقوسين وقور ده هي كتابة من هي دليل الله يبوك ما نقدر أتلا ما نقول قبض ده ويقولون فكيسي ما مخشاب كوان كيسارنتها كوسي ما نقول دلالك وكوري وكارين الله هو دلما يوم المقطع وكوري وحنا يملي الله هو يرى هو درابك مصيح لا دلتكم صلاتكم الله هو يرى هو دلما رسولي وكعبا غوصا يستوى على يسمالي الله هو يرى مسلم كودرو تيدو يا مسلمين بيتاقا تايلا يحاوي يربا وقت يربو يخلطي وقت بدن بوهيستي أنا قمرنا هذا كورما دقاقين وعربا يقعد الله إلا صاحاوي عد كذا واد مقشان ويا يقل صبر بيتيني وقت قاعدة يدافتو وأنا يمالي أدوك نحطيني مركزوني كنت لو واحد موضع يشرب بيها الله بشوي وقلت يقينا لو قلت يهور مرتو قبل دايلا الليلة بدبادي الله ولا وضع لما بدبادي كره الليلة بدبادي يا الله walaalayaal maamadaas insha allahu tacaala qof walba u awoodo wuxuu u heli karo hagu diro telefonkeedii mar labaad baan insha allahu tacaala waxaan soo saari doonaa pagekaygii baan soo saari doonaa haddana waan idin qorayaa mar labaad baan idinku celinaya telefonkeedii waa ka maamadaas ayada ah maamadaas ayada ah waxa waaye kuwo kaloon hadlayni baa jiro walaalayaal waxaad ogaataan tan ma dhammaanayso ilaa ma anaka aan iska dulqaadno ma garat yacni middan oo kale mar walbo sidaan oo kale miyaan yani gurmud u raadinayna waa arrintan waa inaan xididadeeda siibna walaal ka qeyb qaado barnaamijka danguud daryeel shacab insha allahu taala barnaamijka danguud daryeel shacab ka qeyb qaado insha allah 254 waaye furaha okay 7 maamadu waxay joogtaa Dadaab Ifay joogtaa insha allahu taala ha loo gurmado ummadda Soomaaliyeed ha loo gurmado ها مامو ولا وعدوي gabadha saaran tahay masaariba u joogto waa qari iyadiyo maxay ahayd waa la qari gabadhaada
maamadaas nambarkeeda wakaa lacagtaadii baan ku yidhi lacagtaadii aniga hooyadeed macaana anigaa dhalay magarat wata magaceedin mar kale aan kusoo celiyo maamada kolba aniga maskaxda kumaanan qabanin magaceedii waxaa la yirahdaa maamada magaceedii waxaa la yirahdaa maamo koran saari doona laakiin hadda insha allah عليكم لمان مسلمين ولا لا مسلمين وحن كعدسنايا وحن هاي دباتيسن وحن هاي دباتيسن او قحوتيga dadaab ku nool oo gaar ahaan ifa ku nool walaalayaalo waxaan ka codsanayaa gabadh yar oo aan dhalay oo agoon oo nimca suldaan cabdiraxmaan baa aniga la yiraahdaa gabadha maamadu waxa la yiraahdaa nimca suldaan gabadh yar oo miskiin oo 15 cabdiraxmaan daar xigma ii dhiganaysa qaxootiga dadaab ayaa hooyada iga tagtay oo iga carabtay الرحمن بالي هذا مامدا وكا مقعدي ما قرأتن إن شاء الله تعالى وهي أظهري كرتن ودرة كان قيبقات برنامجك السلام عليكم هلو السلام عليكم حول الله ساتاي سويدن هذه اللي جبتهم علينا يا أيه وسحور بنهواينا دون تدني هو برنامج ملا صوتا يا magaalada ka joogtaa Sweden ay barnaamijka wax muu qeyb qaadan kartaa oo maamadaas ma caawin kartaa oo anaka ma caawin kartaa إن شاء الله تعالى لعقتان داي سو حروت dad badan baa loo gargaari doona ilaahay idinkiis wali ma soo xaroonin إن شاء الله تعالى adiga wixii tabartaadii maamadaas u dir hadaad wax aboodo kolba Sweden gudaheeda dadka joogo waa dad iska yaani xalkooda ilaahay og yahay waaye ilaahay iimaanka noo wada sugo marka إن شاء الله adiga wixii tabartaadii maamadaas telefonkeedii magaceedii waka nimca suldaan baa la yiraahdaa wixii adiga tabartaadii u dir ma garat u dir wixii tabartaadii waxaad awood u dir إن شاء الله daaqa إن شاء الله walaal إن شاء الله ولا البرنامج كوسو جبيننا برهبا نو بلنا برهبا نو بلنا إن شاء الله تعالى بري اسور جارسية أو صفي عن حال سو جارسي وركا ضد ديار أو كهلا إلا بقول سدح بقول $1 إن أنا سوي إيمان الله باهي قد كاس إن شاء الله تعالى لا بقول سدح بقول أيانو باهنا طبعا قفرت مرك وجوريزن صاقلنا waxaan u baahanahay 10 qof oo min $300 bixiso 5 qof min $100 bixiso waa $400 Soomaaliyeed magarat marka waxaan u baahanahay dadka Soomaaliyeed sidii arintan oo kale dib dambayso noogu soo noqon lahayn ayaa loo baahay dhibaatadeeni ha noqoto 2017 kan wixii ka dambeeyo shacab iswaafaqsan dawladooda taageersan dalkooda aaminsan inaan helnan u baahana ilaahay idinkiis iyo dadka ku xirxiran meel walba caalamka kamid ah oo Soomaaliya oo bini aadam tagi karo waxaan ballan ilaahay igu ah inaan idinka soo waco anoo dhex joogo maxaabiisti ku dhex jiro hadduu hindi ku xiran yahay hadduu maalto ku xiran yahay hadduu Guantanamo Bay ku xiran yahay hadduu ku xiran yahay Shishiiliya anoo la joogan idin soo wixii hadduu ilaahay idmo dadkoodii maqan waxaan insha Allah taala ugu bishaareynayaa inaan wax badan daba gali doono rag fara badan baa email ii soo diray Yemen dad baa ku xirxiran dad baa lagu wada ganacsada habeenii maalin dad baa noogu xiran meesha la yiraahdo Liibiya dadka hadda kuwaan magifahan waa ku ugu fiican waa dad dawladda Liibiya haysataa jirto wax lagu haysta aanan la aqoonin baa jiro oo la noqday gebigoodii oo meesha qaarkood ku dhintay ma garatay wax lagu haysta aanan la aqoonin afeer yar markan waa midaan u dul qaadan karna ma aha waxa insha Allah ta'ala rajaynaya biri galab markaan qadka soo galo gabdha si fiican u diyaarsan oo Soomaalinimada dhabka ah iyo rag Soomaalinimada dhabka ah inay haduu Ilaahay idmo barnaamijkan ka qayb qaataan baan doonay haduu Ilaahay idmo waadna mahadsantihiin habeen wanaagsan Ramadaan Kariim wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh hala sheer gareeyo waa mahadsantihiin